guddoomiyihii garabka dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga UCID gobolka Sool Xuseen Salaad Ismaaciil ayaa maanta iska casilay xilkaasi isagoo ay weheliyaan qaar ka mid ah howlwadeennada garabka dhalinyarada iyo ciyaaraha ee xisbiga UCID ee gobolka Sool. Xuseen Salaad Ismaaciil oo maanta warbaahinta la hadlayay ayaa sharaxaad ka bixiyay sababta keentay silsiladiisa. waxaa maanta bishu ay tahay 7 bishii shanaad 2012 aan si buuxda isaga casilay xilkii aanu hayay xisbiga UCID ee garabka dhalinyarada ee gobolka Sool sababa awgeed. xisbiga UCID marka koowaad ma aha xisbi soo baxay, ma aha xisbi doonaya in uu ku soo baxo hanaankan doorashooyinka soo socda gobolkan Sool ama gobolada bariga. wax haba yaraatay dhalinyaro ahaan oo taray ama uu gaarsiiyay haday tahay agab sporti, haday tahay wada shaqayn xagga xisbiga ah dhaanahay dhalinyarada gobolka Sool ku nool. aan oo ahay gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga inaan maanta haba yaraatay wax dambe oo xisbiga ah oo wada shaqayn laga dhaxaynsa aysan jirin. qaar ka mid ah howlwadeennada garabka dhalinyarada iyo ciyaaraha xisbiga UCID ee gobolka Sool ayaa iyana ku dhawaaqay iscasilaadooda. anagoo ka mid ah dhalinyarada xisbiga UCID garabkiisa uu hogaaminayay Xuseen Salaad oo maanta ku dhawaaqay iscasilaad. anaguna aan ku taageersanay iscasilaad markaan aragnay xisbigii in uusan wax dana ama daryeel uusan u hayn dhalinyaradii gobolka Sool. dhalinyaraduna future iyo mustaqbal bay rajaynaysaa. Faysal Cali Waraabe iyo xisbigiisa waxa wada shaqayna naga dhaxaynaysa ma jirto. anaguna waan ku taageersanahay. taageeradana waxa keenay caqabado fara badan aan gudoomiyaha xisbiga aan ka tirsanano. Cabdiraxmaan Ali Ducaale, Home Cable TV, Laas Canood.